miisaaniyaddu waa isku dheelitirka oo daraska dakhli ee la filayo inuu ka soo baxo ilaha kala duwan ee dhaqaalaha qaranka iyo daraska kharash ee ku baxaya fulinta howlaha dawladda. taasi oo macnaheedu yahay in miisaaniyaddu ay tahay halka laga jaangooyo fulinta mashaariicaha kala duwan ee dawladdu u qabato bulshadeeda iyadoo ka timaada cashuurta laga qaado bulshada qaybaheeda kala duwan. haddaba muwaadin ma ogtahay in miisaaniyaddii 2019 ay ku jireen 80 mashruuc oo horumarineed oo ah mashaariicda uu muwaadinku u baahan yahay ama uu تسيربا ميزانية وقرش كانت كنا صورة في 2019 ميزانية الديارين تيدا يحب معمل كيدا وحنور عليه حبك معمل وناك مالية البيئة فهم قويقان سياسة الميزانية لوضع كل سلالة ترونكا وحيكون سلسلة هاي قرشها هرومارينت قرنكا يلو يقان قناة NDP2 يبلنغات كحزبك كلية وميزانية كترجميسا جودهان هرمرك دلك وجيك سنة يوم ميزانية والبو حيكون بلانتها ديارين وحان يقول لما تأوريتين اللوغ بيها بارلمانك كلو كباران ديغا وان هورتنا بارلمانك ودفاعنا بارلمانكو باسكرية ميزانية سيادة توسط أساسا دخل الميزانية دين وكي ماذا سلوك بدن يهي بقاد بوقو بدن يهي كستم يلا وكي ماذا وزارة مالية واحد مسؤول كتاعي وكا ديارينتا يبحنتا يكو إلالينتا waaxda xiriirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa u kuur gashay mashaariicii kala duwanaa ee laga hirgeliyey qoondadii miisaaniyadda 2019 iyo sida ay bulshadu uga faa'iideysteen caafimaadku waa baahiyaha asaasiga ah ee aadamaha. miisaaniyadda 2019 waxa ay mudnaanta siisay horumarinta caafimaadka iyadoo awoodda la saarayo muhiimadda hooyada iyo dhallaanka waxaana la dhisay 9 xanaano iyadoo qaybo cusubna lagu daray waarka umulaha cisbitaalka Hargeysa. waxaa sidoo kale kaliyaha loo iibiyay cisbitaalka Burco iyo qalab kala duwan oo kor loogu qaadayo xarumaha caafimaad. waxaa noo qabsoomay oo noo dhismay 9 MCH oo minbari ilaa galbeed wadanka oo dhan ku teedsanaa 9 MCH oo ay ka mid ahaayeen MCH-ka Biyamaca ee Gogol Wanaag, MCH-ka Gatiitalay, MCH-ka Xaaxi, MCH-ka Caaqil Yare, MCH-ka Sarmaanyo, Xayira dhammaan MCH-ka Qarroob Bohoodla ka mid ah. dhammaan MCH-yadaas way wada dhismeen waana gacantaana laga wada qaaday waana dhameystiran yihiin. waxa kale oo iyaduna mashaariicda ka mid ahaa oo gabagaba ah waarka umulaha ee cisbitaalka weyn ee Hargeysa oo runtii waar weyn oo ay lacag badani runtii ku baxdaya. waxa kale oo mashaariicda sanadka ku jiray ka mid ahaa iibsiga gaadiidka oo runtii ay ku jireen 4 ambulance oo sidaad imika arkaysaan qaybtoodii hore ay soo gaadhay wasaaradda 4 minibus oo midna iskuulka neersku lahaayeen 3na xarunta dhexe ay lahayd oo qaybtoodii hore iyadana ay soo gaadhay wasaaradda. halkan in maanta joognaa waa waardkii ahaan jiray umulaha iyo xanuunada dumarka. waardkan waxa gebi ahaanba dhisaysa dawladda Soomaaliland waxaana ku jira miisaaniyaddii sanadkan imika sii dhamaanaya 2019. waardkii hore wuxuu ahaa 820 sariirood kanna wuxuu noqonayaa in ka badan 100 sariirood haddii Ilaahay yiraahdo. waad aragtaa baan ku dhismihii xanaanada loo dhisay baahida loo qabay mid aad iyo aad u cajiib leh weeye. qof haddii uu qof dumarahoo umushay uu keliya baahidu markaan kaaga soo qaado markay baahideedu timaadada Hargeysa loo qaadayay tiyo bulshada dhexdeedii iyo tuulooyinkii dhextimi wax loo dhigo ma jirto. waxa la noo dhisay xanaanada sanadkan imika dhamaanaya xanaano hormaana lahayn tana noogu horay arabsi marka la geeyo xanaanada carruurta haday tahay iyo dumarka umulaya tahay inta arabsi la geeyo baahi weyn baan noo qabnay waana u mahadnaqaya. degmada Ceergaabo hospitaal in lagu maalgeliyay lacag milyan iyo abafa. maxamed Jaac Yuusuf baa xildhibaan maxamed Jaac Yuusuf oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Buuhoodle MCH-kan uu dhameystiran yahay. ismaahan waa dhameystiran yahay
meebseeshka waa la dhisay dowladda Soomaaliland baa la dhistay wasaaradda caafimaadka ayaa dhistay xagga caafimaadka waxa la keenay oo aynu aragnay qalabkii kaliyaha mashiino badan oo waxtar ah hana dhaqtarka burco aad iyo aad buu isu bedelay aad iyo aad buu hadda u wacan yahay anigu dhowr jeer caruur geeyay oo asaq dhexe waan geeyay subaxna waan geeyay casarna waan geeyay intaba si wanaagsan oo hufan oo aan la yaabay ayaa la igu shaqeeyay waxaan kaloo aad iyo aad iyaduna aan u taabanayaa mid aad iyo aad loogu bogay oo ammaanteeda iyo dhiirigelinteedaba leh degmooyinka gobolka iyo tuulooyinka waxa laga hirgeliyay xanaanooyin MCHyo dhammaantood shaqeeya dhammaantood bulshadii baahidoodii wax weyn ka taray waxa kale oo xukuumaddu 2019 noo hirgelisay iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka taasoo laga dhisay miisaaniyadda qaranka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka taasoo ay ka hirgeliyeen 3 MCH deegaanka Oodweyne 3 MCH oo kala xaaxi MCH gadiitale MCH iyo jamacada Caynaasha MCH bulsho inay yeelato kayd raashin waa waxqabadyada gaarka ah ee laga fuliyey miisaaniyadii sanadkii tegay iyadoo la dhisay dhismaha kaydka raashinka lana dhigay raashinka kaydka oo qaranka ku filan sida aad aragtaan hoolkan weyn oo ka kooban 30 mitir iyo badh oo dhinacaas iyo 20 mitir oo dhinacaas iyo 8 mitir oo dusha ah waxa fuliyay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barshadka dawladda ayaa laga fuliyay sidoo kale cunada aad arkaysaan kaydkii qaranka weeye oo kolka ay dhibaato timaado loogu talagalay in gurmad markaaba runtii lagu sameeyo iyadoo waxyaabo kale oo la bixiyayba iyo raashimadan mashaariicdan oo dhamaantood ka baxay barjadkii dawladda ka baxay si loo helo cunto iyo alaab qabta waxa miisaaniyadda sanadkii tagay laga iibiyay mashiinka tayada cuntada dalka soo galaysa iyadoo uu socdo dhismaha shaybaadhku mashiinkan HPLC baa leeyahay waxa lagu baari karaa dhammaan cuntada iyo dawooyinka qaar baa lagu baari karaa waxaan rajaynaynaa insha Allah isaga iyo wixii mashiin aanu hayno xarunta magaalada Hargeysa yaala madaarka yaala inaanu ku hawlgali karno hadii la ka dhigo ku sameey karno market surveillance wax leeyahay qalabkan waxa laga iibiyay miisaaniyadda hay'adda dawladda tayada waxayna baxday 2019 marka sanadkan bay miisaaniyadda ka baxday qalabkiina waa kan badbaadinta nafta iyo maalka bulshadu waa meelaha ugu horeeya ee bulshadu ka horumarto iyadoo taa laga duulayo waxaa miisaaniyadda 2019 laga fuliyay dhismayaal iyo qalabayn ciidamka damdamiska ah miisaaniyaddii 2019 ee wasaaradda horumarinta maaliyadda qaranka oo qorshaysay ciidanka damdamiska qaranka waxa ugu mudnaa in ciidanka damdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu helo qalab uu ku hawlgalo qalab xafiiseed kala duwan oo isugu jiray qalabka kombiyuutarada iyo waxyaabaha hawl socodsiinta isgaarsiinta aad iyo aad loogu adeegsado ama ICT-ga loo yaqaano iyo radio communication dayactirkiisa oo fara badan mashruuca labaad ee ciidanka damdamiska u hirgalay wuxuu ahaa dhismayaasha laga fuliyay gobolada marka waxa ugu mudan mashruuca dhismaha Laascaanood oo 1 bilyan oo shilin Soomaaliland lagu bixiyay ismiisuna uu hadda socdo sidoo kale waxa isaguna qabsoomay dhulka Burco in la sii baneeyo dad laga raro deer lagu wareejiyo dhammaan kharashkaas miisaaniyadda qaranka ayuu ka baxay sidoo kale dhismaha weyn ee lagu soo kordhiyay militariska guud ee ciidanka damdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland labada dabaq iyo ka hoose ka kooban ee madaxweynuhu xadhiga ka jaray 31 bisha isagana waxa laga fuliyay miisaaniyadda dawladda wasaaradda horumarinta maaliyadda oo qorshaysay ciidanka damdamiska qaranka sidoo kale 2020 oo aynu guda galnay iyadana waxa qorshaysan insha Allah taala 6 mashruuc oo ka kala qabsoomi doona 3 mashruuc oo gobolada galbeedka laga hirgelin doono 3 mashruuc kale waxay ka hirgelayaan gobolada bariga bulshada
dhiirigelinta dhalinyaradu waxay baal dahaba kaga jirtay miisaaniyadda sanadkii tegey iyada oo dhismo iyo dayactir lagu sameeyey garoomada laascaanood buurco berbera iyo Ceerigaabo. waxaan ku sugnahay garoonka weyn Cabdibil Cabdi run ahaantii dhalinyarada gobolka iyo sportska dhib weyn bay ku qabeen markuu ciidaha haday tahay dhanka dhaawacyada haday tahay garoonkii oo aan official ahayn oo ciyaaro official lagu qaban karin wixii inta ka dambeeyay waxa hirgalay markii rooga la dhigay ee wasaaradda maaliyaduna qayb weyn ka qaadatay in tartamo caalami lagu qabto Soul Cup iyo tartamo badan tartankii iskoolada iyo waxbarashada wuxuu kala noqday garoon official oo hadda lagu qaban karo koobka gobolka garoonkan Alabsi Stadium oo anigu ku horintaan gudoomiyaha noqon ka ahaas ragii Siriga ku qabanayay ciyaarihii wadka Caafi iyo STC iyo markii ciyaariyeen waxaan maanta dhex taaganahay isagoo dooga oo aad iyo aad aragtaan bilaada iyo quruxdiisa aad aragtaan waxweeye Alabsi Stadium oo loo bilood ka hor ahaa meel ciido bood leh maantana uu yaalo roogii cagaarna waa aragtaan wuxuu eegahay garoomada caalamka daawataan meel ciido bood mudan bay ahayd dhibaatooyin mudan baa ka dhici jiray wuu banaanaa xoolaha daaqi jirayba iminkana waa aragtaan waa xidhan yahay dee siduu runtii loo dagax jiray waa aragtaan waxa gacanta lagu hayaa hay-adda dhalinyarada iyo ciyaaraha garoonkii ood weyne dhisitaankiisii oo xukuumaddu bixisay gacanta lagu hayaa waxa kale oo gacanta lagu hayaa xabsiga ood weyne oo xukuumaddii sanadkan miisaaniyadeeda ku jirtay iyadana waa la dhisayaa oo gacanta lagu hayaa waxa qodobka saddexaad ah ee gacanta lagu hayo maxkamadda gobol degmo oo iyadana dayactir iyo dhismo intaba lagu sameynayana gacanta lagu hayaa lafdhabarta koobaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa xoolaha nool si xoolo bad qaba dalkeena uga dhoofaan waxa magaalada Berbera laga fuliyay shaybaarka xanaanada xoolaha iyadoo la adeegsanayo miisaaniyadda sanadkii tagay si looga hortago xaalufka deegaanka waxa beeris lagu sameeyay banka aroori waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa mashruuca seeraha aroori laga faa'iideystay dadka xoolaha iyo deegaanka loo xiray aad iyo aad buu seerahaas gaar ahaan markaan ka hadlo aad iyo aad way lafdhabarteenu xoolaha nool bay hayd aroori way nabaad guurtay ciid soconaysay hayd markii seeraha laga dhigay imikana cawsasaan dunidaba lagu arag baa ka soo baxay waxaad moodaysaa inaad dhulka loo Soomaaliland baahan joogto markaad seeraha tagto waxa sanadihii tagay 2018 iyo 19 miisaaniyadda qaranka si weyn uga dhex muuqday maalgelinta wadada Ceerigaabo iyada oo sanadahaasi laga maalgeliyay 100 kiiloomitir oo kala ah 60 kiiloomitir oo la dhisay sanadkii 2018 halka 40 kalena laga dhisay miisaaniyadda sanadkii tagay ee 2019 sidoo kale dib u dhis lagu sameeyay biriishka magaalada Burco wadada tan markii aanay jirin hore dhibaatooyin fara badan ayaa ka haystay bulshada reer Ceerigaabo hadaan nahay dhibaatooyinkaas oo ahaa in Burco iyo Ceerigaabo loo kala dhaxay hal habeen Hargeysa hadalkeed badaa marka run ahaantii waa wado aad iyo aad aanu ugu intifaacnay maantana gobolku uu hore ugu sii marayo waxay ka hirgelisay gobolka Togdheer waxa indhaha laga qarsan karo maaha waxay dhistay biriisho aad iyo aad u tiro badan dekada kalluumaysatada waxa sidoo kale dib u dhis lagu sameeyay dekada kalluumaysiga ee magaalada Berbera loona iibiyay qalab kalluumaysiga haddaba ma waadin si loo fuliyo mashaariic wax ku oola waxa qof kasta laga rabaa inuu bixiyo cashuurta ku waajibtay waxa qabsoomay waa cashuurihii iyo dib ugu noqday ee arkaysaana dhisani dawladnimo ahayd meel kale lagama keenin iyo sooranin malaha waa laydinka qaadayaa una meel kale tegaysaa dawladdu waxa ku nooshay cashuur dawladnimo haddaan maqshaa saxiid waxa kuma dhisna waxay ku nooshahay ku dhaqaaqdaa ruuxdeedu waa cashuur weyn cashuurta ay dadka ka qaado ayuu mid ku shaqaysaa haddii ay taa weydo dama dhaqan karto marka waa ruuxda dawladnimada cashuur bixintu waa wadaninimada runta weeyaan cashuur bixintu waxa weeye cashuur la'aani waa dawlad la'aan haddii cashuur la waayo dawlad dhismi mayso amni la heli maayo ciidan waddanka difaaca la heli maayo cid kala garsoorto ummadda la heli maayo cashuuraha waddanka oo la bixiyo ayuu qaran ku dhisan yahay
cashuurtu waxa weeye waxaynu waddankan ku dhisnay ee ku noolahay ee ciidamada furimaha jooga aynu ku masruufayno ee dhakhaatiirta aynu dadka beeshinka aan lagu daweynayo ee iskuullada dadka aan lacagta iska bixin karin wax laga tarayo ee laamiyada iyo waddooyinka laynooga samaynayo inkastoo reer Soomaaliya muddo shawalan hataa doonaysa waddankaada inuu dhaqaaqo horumar sameeyo kii cashuurta ku waajibtay marka cashuurta dadka dhan bay khusaysaa sababta waxaan leeyahay dadkana cashuurta hura ganacsatadu si fiican oo hagar la'aan ah u bixiso cashuurta haddaynu cashuurta bixinno ilaahay ma cid kale uma baahni aynu gacmaha isqabsanno cashuurtu waxay cid leedahay maaha waa waxaynu dhammaanteen wada leenahay waxaan ku bogaadinayaa ummadda Soomaaliland koone ilaa koone cashuurtaasay danteenu ku jirto